kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo la kulmay Maxamed bin Zayed iyo Imaaraadka Carabta oo aqbalay arrin muhiim ah. sidoo kale warka waxaan idinku haynaa safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo cadeysay sababta safiirka cusub uu aqoonsigiisa ugu gudbinayo madaxweyne Farmaajo. guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in si degdeg ah loo dhameynayo doorashada golaha shacabka. sidoo kale warka waxaad kaga bogan doontaa madasha badbaadada Galmudug oo baaq ka soo saartay dagaalada ka socda maamulkaasi. qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan. aynu ku bilownay Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la kulmay Maxamed bin Zayed iyo weliba Imaaraadka Carabta oo xilligan aqbalay arrin muhiim ah. dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si rasmi ah u soo dhaweysay raaligelintii uu Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ka bixiyay lacagtii Imaaraadka Carabta looga qabtay garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho bishii Abriil sanadii 2018. raaligelintan ayaa waxaa lagu aqbalay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta kadib markii dhaxal sugaha wadankaasi Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan uu magaalada Abu Dhabi kula kulmay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Maxamed bin Zayed waxaa la rumaysan yahay in markaas uu yahay shakhsiga ugu awoodda badan dalka Imaaraadka Carabta waxaana la sheegaa inuu yahay hogaamiyaha dadban ee dalkaasi. kulanka Ra'iisul Wasaare Roble iyo Maxamed bin Zayed ayaa waxaa diiradda lagu saaray horumarinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee walaalaha ah iyo hababka lagu xoojin karo xilligan. waxay sidoo kale ay isweydaarsadeen labada dhinac arrimaha sida gaarka ah u quseeya labada dal. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu mahadceliyay Maxamed bin Zayed iyo shacabka Imaaraadka Carabta soo dhaweynta isaga iyo wafdigiisa iyo sidoo kale doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya gaar ahaan gurmadkii ay la soo gaareen shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen. dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa dhankiisa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kaga mahadceliyay mowqifkii xukuumadda xilgaarsiinta ay ku cambaareysay weeraradii argagixiso ee maleeshiyaadka Xuutiyiinta ay la beegsadeen goobo ku yaala magaalada Abu Dhabi ee wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta. Ra'iisul Wasaare Roble iyo dhaxal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Zayed ayaa sidoo kale kulankooda kaga wada hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya guud ahaan gobolka iyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. dhanka kale safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay cadeysay sababta safiirka cusub uu aqoonsigiisa ugu gudbin doono Farmaajo. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa cadeysay sababta safiirka cusub ee Muqdisho soo gaaray dhowaan uu nuqul ka mid ah waraaqadihiisa aqoonsiga ugu gudbinayo madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo ayaa muddo sanad ah kursiga ku fadhiya si sharci darro ah kadib markii muddaxileedkiisa dhammaaday 7 bishii Febraayo 2021. safaaradda oo bilowday baahinta qoraallo iyo sawirro ay dadka ay ku barayso safiirka cusub iyo taariikhdiisa ayaa dhinaca kale qoraal ay soo saartay uga hadashay munaasabadii uu Sabtidii 29 Janaayo 2022 safiirka cusub Larry Andrew nuqul ka mid ah waraaqadihiisa aqoonsiga ugu gudbiyay wasiirka arrimaha dibadda xilgaarsiinta Soomaaliya. Ambassador Andrew waxa uu nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga safiirnimo u gudbiyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali. asalka warqadan waxaa loo gudbin doonaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda. safaaradda oo sharaxaad ka bixisay arrintan ayaa qoraalkeeda ku soo gabagabaysay sida dhaqanka diblomaasiyadu yahay. warqadda aqoonsiga waxa ay si rasmi ah danjiraha uga dhigaysaa wakiilka madaxweynaha dalka Mareykanka u matali doona Soomaaliya ee ku hadlaya magaca dowladda Mareykanka taasi oo ku socota madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka. Mareykanka ayaa hore doorashadii 2017 dib u dhigay inuu safiirkii cusbaa warqadihiisa aqoonsiga la wadaago madaxweynaha xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud waxaana lala sugay madaxweynaha cusbaa balse xilligan ayaa waxaa muuqda in ay doorashadu gaabis ay ku socoto waqti dheerna ay qaadan doonto. sidaas daraadeed waxaa cad inaanan la ogeyn xilliga Soomaaliya ay yeelan doonto madaxweyne cusub iyada oo dadka qaar ay rumaysan yihiin in Farmaajo uu mar kale isku dayi doono inuu carqaladeeyo doorashada sida uu dhowr goor oo hore uu sameeyay sida xubno badan oo mucaaradka ay ku eedeynayaan. dhanka kale guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay sheegeen in si degdeg ah loo dhameynayo xilligan doorashada golaha shacabka.
xilli gobolada dalkii magaalada Muqdisho ay si xowli ay kaga soconayaan doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya oo ilaa haatan xubno dhowr la doortay lana rajeynayo in 25 bishan Febraayo la soo gabagabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka ayaa haatan guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay shaaca ka qaadeen in si degdeg ah loo dhameynayo doorashadan. Afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Safiina ayaa sheegay in doorashooyinka golaha shacabka ay u socdaan sidii loogu talagalay isla markaana maalinta biri ah ay soo xiri doonaan doorashada 100 kursi ee golaha shacabka ah. Afhayeenka oo warbaahinta kula hadlay gudaha dugsiga tababarka booliska ee General Kahiye oo maanta lagu qabtay doorashada 4 kursi ayaa sheegay in si dardar leh ay ku socoto doorashada ayna rajo wanaagsan ay ka qabaan in jadwalkii doorashada loo asteeyay ee 25 bishan in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka. Waxa uu hambalyeeyay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulada ee doorashooyinka golaha shacabka qabtay kuwa kalena iclaamiyay, wuxuuna guddiyada doorashooyinka dowlad goboleedyada ugu baaqay in ay si degdeg ah ay ku shaaciyaan jadwalka doorashooyinka golaha shacabka ee deegaanadooda lagu qabanayo. Ugu dambeyn, afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Safiina ayaa ku baaqay in la ilaaliyo qoondada haweenka isla markaana beeshii 3 kursi leh mid ka mid ah haween laga dhigo sida uu hadalku dhigay. Doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ayaa si xowli ah dalka kaga socota iyadoona shirkii Muqdisho ugu soo gabagaboobay xubnaha golaha wadatashiga qaranka lagu heshiiyay in doorashada lagu soo gabagabeeyo 25 bishan Febraayo sanada 2022 waxaana xubnaha musharaxiinta xilligan ay qabaan ififaalo ku aadan in heshiiskii Muqdisho lagu gaaray laga dhabeyn karo xilligan. Dhanka kale, madasha badbaadada Galmudug ayaa baaq waxa ay ka soo saareen dagaalada ka socda maamulkaasi. Madasha badbaadada Galmudug oo dhawaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa baaq ka soo saartay dagaal beeleedka ka socda deegaanka Xaraale ee hoostaga degmada Balambal kaasi oo u dhaxeeya dad walaalo ahi. Madasha badbaadada Galmudug ayaa maamulka Galmudug uu hogaamiyo Axmed Cabdi Kaari Qorqor ugu baaqay in uu si dhaqso leh u diyaariyo jawi wada hadal ah iyo weliba joojinta colaadda u dhaxeysa labadaasi maleeshiya beeleed ee walaalaha ah. Madasha ayaa sidoo kale waxgaradka ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii loo damin lahaa colaadda u dhaxeysa maleeshiyaadka maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamay halkaasi. Waxa ayna sidoo kale ugu baaqeen beelaha dagaalamay inay joojiyaan colaadda. Madasha badbaadada Galmudug ayaa ugu dambeyntii waxa ay sheegeen in maamulka Galmudug uu ku sugan yahay marxaladii ugu adkeyd abid, iyagoona tilmaamay in xilligan abaaro baahsan oo galaaftay nolosha dadka iyo weliba duunyada halkaasi ay ka jiraan iyo dagaallo u dhaxeeya maleeshiya beeleed walaalo ahi oo hubeysan oo halkaasi dirir joogta ay ku dhex maraan. Guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi kusoo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Garmaal TV tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.